السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة وناكسن إن شاء الله. waxaan halkan doonaa insha Allah inaan kula wadaago shaqooyin dhowr ah oo la soo galiyay meelaha kala duwan ama baraha kala duwan. Shaqada ugu horeysan rajin insha Allah inaan ila wadaago xawayaan UNOPS waa hay'ad qaramada midoobay ah oo inta badan ka hawlgasha adduunka meelo badan. marka waxay u baahan tahay xamar ayay waxay uga baahan tahay ama Muqdisho procurement senior assistant senior procurement officer marka laga hadlayo ayuu qofkan uu si noqonayaa senior procurement assistant oo Muqdisho Soomaaliya bisha labaad foodan ugu soo haysa February 8 ayaa position ilaamkiisu expire garoobaya. marka kulli shaqadan procurement haddaan ka yar hadlo procurement inta badan wuxuu ka hadlaa qaybta supply chain ayuu xiriir leeyahay waana soo iibinta alaabaha qof ku takhasusay badan ayuu inta logistics ka badan bay isaga baahan tahay way ka baahi badan tahay ama way ka shaqo baahan tahay international NGOs iyo local ka laga yaabaa in nationally, regionally, globally in wax badan isku xirnaadaan. marka therefore qofkii u baahan insha Allah Muqdisho jooga shaqada u baahan inuu marka xareysto procurement kana aqoon u leh badana jaamacadaha lagu dhigtaa faculty-gaasi waa as a course baa loo dhigtaa badanaa. marka aqoontu waa degree maaha master maaha aqoonta looga baahan yahay waliba khaasatan waa university degree ama secondary ba xitaa dad xitaa dugsi la tahay it's okay no problem. procurement marka experience kala baahan waxa weeye relevant experience is defined and experience in procurement management, procurement services, supply chain management, procurement support, procurement supply management, business administration, experience in computer literacy is required. marka qofkan shaqadan cidoo dad badan iska xariisan kara oo iska fudud tahay oo deegaanka marka laga hawlgalayo just try gareyn kara. marka shaqadan sida badan UN-tu iyada email lagu diro waa online baa lagu apply gareeyaa by online. marka insha Allah qof walba just try inaad online ku apply gareyso. position ka labaad waa hay'adan loo yaqaan DRC garansan DRC dhamaantiin waa Danish Refugee Council. waxay u baahan tahay humanitarian policy advisor bay u baahan tahay arrimaha samafalka iyo siyaasadaha laga yeesho badanaa iyo siyaasadaha lagu maamulo someone very dedicated ku ah xagga policy-ga talada iyo tusaale fiican implementation setting up xagga siyaasadaha ka siin kara. marka badanaa DRC as you can qaar badan garanayaan waa international NGO waa hay'ad international ah oo caalami ah. sidaas darteed assume my visit waad booqan kartaa Somali Jobs baad booqan kartaa linkiskana xagga hoosan soo dhigayaa. qofkan experience iyo qualification laga baahan yahay waxa weeyaan 3 sano oo inuu leeyahay way aragnimo dhinaca drafting and delivering policy and policy advocacy working for responding to complex humanitarian crisis. halkan ereyada sida ku gabanay drafting baa laga baahan. drafting waxa qof inuu siyaasad dejin karo, deliver gareyn karo, siyaasadii advocacy gelin karo, ka jawaabi karo xaaladaha complex crisis waxa loo yaqaano ama humanitarian crisis ka post conflict situation ka sida xaalada marka 5 years aqoon ayaa looga baahan yahay.
shaqadana waa baydhaba baa looga baahan yahay, bayskeedu waa baydhaba ayaa qofkan looga baahan yahay. duty station waa baydhaba, koonfur galbeed Soomaaliya. qofkan 12 bilood baa contract noqonaya. possibility-geedu waxa weeyaan inuu Allahumma salli ala Muhammad loo kordhin karo waqtiga oo according to your dadaalka ku xidhnaanaysa. shaqada marka aad gasho qofku shaqada laba mid buu ka dhigaa, qof in laga maarmi karo hadhow iyo qof shaqadu ka maarmi weydo. marka taana dadaalkaas leeyahay. marka reer koonfur Soomaaliya xareystaan meal officer baa lagu baahan yahay Hargeysa. hay'ad loo yaqaan active baa u baahan. active kuwa hay'ad French ah oo arrimaha humanitarian ka shaqeysa. 1993 baa hay'adda la aasaasay sida inta badan bro xogteedu sheegayso. mealka garanaysa waa monitoring, evaluation and learning baa la yiraahdaa. M&E baa loo bedelay, meal loo bedelay inta badan because dadka qaarkood way garan karaan. qofkan waxaa looga baahan yahay sida shaqadan tahay sideedaba establish and implement database management baa looga baahan yahay inuu iyo database strategy, inuu sidoo kale data collection methodologies and tools keeno, analyze gareeyo, plan dejiyo, report gareeyo, information iska dhammaan disseminate gareeyo, and even utilization plans uu keeno. M&E meal support ka dhan baa looga baahan yahay wixii thematickiisa loo baahnaa. shaqadan waxaa lagu xarinayaa ba email baa lagu xarinayaa. emailkuna wuxuu ku jiraa linkskana insha Allah xagga hoose soo dhigi doonaa hadii la ka dhigo. idlo hay'ad loo yaqaano waxay baahan tahay professional videographer bay baahan tahay. waa idlo wax kale waa international development law organization. shuruucda marka caalamiga ah bay inta badan hay'adda ku shaqeysaa ku dabaqdaa. videographer ka garanta dadka IT-ga xaq ku si fiican ayaa outstanding ku ah. marka insha Allah qofkii shaqada u baahanaa insha Allah ha apply gareeyo by online baa lagu apply gareynayaa. just try best qofkii samayn kara isku day karayaa isku dayo qof videographer ku fiican waxyaabahaas. competencies-keeda iyo waxeedana waa akhrisan kartaa oo akhris baa laga baahan inaad samayso because qofku intaan marka shaqada xarin waa inuu awalan koobaad waa inuu markaa try gareeyo inuu akhriyo oo reading ku sameeyo. International Medical Corps IMC baydhaba waxaa looga baahan yahay ama damal caafimaad baa waxay u baahan tahay technical coordinator bay u baahan tahay. marka maxaa la yiraahdaa qof technical expertise ah oo hay'adda u shaqeeya laftigeeda linkskan soo gelinaya insha Allah xagga hoose. marka linkska ka refer garee. waxaa laga baahan yahay master's degree in public health baa looga baahan yahay, medicine, nurse related, all of this. waa kolley technical hadda timaado is not easy. qof walba calafkaaga insha Allah. shaqadan waxaa lagu xareynayaa by email insha Allah. by email baa lagu xareyn doonaa. waxaana xidhmaysaa 5 February bisha noo socota ilaaha ka dhigo ayay shaqaasi markaa xidhmi doontaa. insha Allah saasan hala wada xariisto dhammaan insha Allah hala dadaalo. waa kale shaqooyinka maanta technical biska badan shaqooyinkii inta badan la soo gelin jiray way koobnaayeen. maanta Jimcaha iska ahayd Super Friday. qof walba insha Allah hala dadaalo. haddii aad u baahato CV-yada iyo xilli halmaalaa iga soo qabo WhatsApp-ka 063 486 2926 WhatsApp insha Allah iga soo qabo. Assalaamu calaykum.